inuu siiyey nicmooyinka wada xidhiidhka iyo waxa weeye iska warhaynta. ilaahay subxaanahu wa tacaala zaman wal iyo waqti walbana waxa uu keenaa mid tii hore waxa weeyaa ka dhow oo kii fogaa soo dhowaynaysa oo labadii is-iloobay is-xasuusinaysa. nicamka ilaahay zamankan inagu galladaystana waxaa ka mid ah in mid jooga bari guntii iyo mid jooga galbeed guntii ay wada hadlaan, iyaga oo hadalka iyo salaanta ka soo baxaysa midkood ka kale xilliga ay ku gaadhaysaa ay tahay daqiiqada yar gudahood. iyadoo qofku gurigiisa uu iska joogo, sariirtiisa uu ku hurdo ama barkimadiisa uu ku jiqilaysan yahay, ayaa waxa ku soo hoobanaysa oo ku soo xayanaysa wararka adduunyada bari iyo galbeed, koonfur iyo waqooyi. waxaana ka xigta inuu warkaa ogaado, inuu fartiisa ku gujiyo nuqdooyin iyo dhibco yaryar, ama uu fartiisa ku garaaco lambaro yar, dabeedna isaga oo fadhiya uu ogaado waxaa ku wax kalifi lahaa inuu doono ama uu raadsado. arrimaha noocaasa walaalayaal ee midkeeni uu fartiisa yar kula xidhiidhayo 100,000 oo ruux, ama xaraf uu qoray ay daalacanayaan malaayiin qof, waa shay haddii looga warrami lahaa awowyadeennii hore aanay rumaysteen, una qaadan lahaayeen khayaali iyo waxaan xaqiiqo ahayn. maxay ugu qaadan waayi lahaayeen sidaa? iyadoo oo kooda safraa uu maqnaan jiray bilo, warkiisuna uu ahaa mid go-an ilaa uu soo noqdo oo uu yimaado, amaba waxa weeye geeridiisu ay timaado. iyadoo oo wararka iyo dhibaat iyo howlaha ka dhacaya hareerahoodu inay maqlaan ay ku kalifi jirtay muddooyin fogfog iyo wakhtiyo badan inuu warku soo gaadho. maantana laga yaabo